السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalahey oo meel kasto dunida ka joogtaan waan idin salaamay waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo kooban qodobka ugu horeeyay waa fadilada sheekha Maxamed Idriis iyo barnaamijka tababarka ah oo Hargeysa maalinta dhawdo ka qaban lahaa ee laga joojiyay iyo sidii uu sheekhu u dhaqmay markii dambe iyo barnaamijkii uu soo galay iyo live-kii uu kaga waramay iyo sida dadku qaar ay filayeen ama ay barteen iyo sida ay runtii culimadu uga duwan tahay ridu ficligoodu sheekhu ilaahay ha barakeeyo waa qof runtii daaci ah waa qof khibrad badan xambaarsan waa qof aqoon diimeed leh sida uu dhaqmay iyo sida uu hadlay baana tusinaysa wadanka Soomaaliya iyo Soomaali meel ay joogto oo dhanna waa dadkiisii wuuna jecel yahay sidoo isaguba sheegay waxaan xusuustaa hadda ka hor qoraalana uu ku sameeyay shakhsiyanna uu ii sheegay 200 oo markaz ama center waxa loo yaqaano ayuu Sheekh Maxamed wax ka dhisay Soomaalidu meel ay joogta oo san teginna ma garan karo idinkuna waad ogtihiin taqriiban intaana ummadda Soomaaliyeed buu khayr iyo maaragtay wanaag ugu daba socdaa safar iyo dhibaatada uu leeyahay waad garan kartaan raaxa inuusan ahayn dalxiisna uusan ku jirin marka sheekha waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay mowqifkii wanaagsanaa ee qaadatay iyo amaantii aad u soo jeedisay xukuumadda Somaliland iyo waliba sidaad ugu ixtiraamtay nidaamka ka jira iyo go'aanka ka maamul ahaan iyo ka dawlad ahaan la qaatay inuu sheekhuna u hogaansamo waxyaabaha muhiimka ilaa haddaan la isu hogaansamin oon loo kala dambaynin umuurta hawli socon mayso runtii sidaas oo kale waxaan isagana ku haboonayd inuu u dhaqmo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif oo isaga naftiisu runtii nin caqli iyo deganaan badan ba lagu yaqaan ahaa markii isaga shakhsiyan arrin lagu sameeyay ama safar laga joojiyay inuu xanaaq muujiyo waxa ka haboonaan lahayd baan isleeyahay ummad badan oo Soomaaliyeed oo tagaysay gobolkaas ama Jubbaland u socotay ama kuwa ka imaan lahaa oo horeba laga joojiyay marka inuu dadkaas iyaga loo kaco oo loo xanaaqo ayaad moodaa inay nidaam ahaan ka haboon tahay waana sifadii iyo tilmaantii rasuulku lahaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam waana midda isagu waligii uusan dantiisa iyo isagu naftiisa uma aaragoosanin kamana uusan naftiisa u xanaaqin wax lagu sameeyo laakiin dadka kale iyo xurumaadka markii la qaradhiyo iyo taasoo u xanaaqi jiray sifadii rasuulka hadda dad culimaana waa la yahay Sheekh Shariif nin sheekh ah oo runtii aqoon diimeedna la weeye marka taasna waa midda aan jeclaan lahaa runtii inuu sidaas u dhaqmo khayr Allah siiyo waxa kale oo rabaa inaan u soo laabto xukuumadda Somaliland oo runtii aan tawsiyaad madaxweynaha Somaliland u soo jeediyo Muuse Biixi Cabdi oo aan iraahdo runtii waxa haboon culimadu male madaxweyne gobol gaar male magaalo gaarana male Soomaalida ayaa u amaartay meel ay joogaanba dadkoodii u ah dalkoodii u ah runtii waxaan aad u jeclaystay adna jeclaan lahaa sifada ay qaateen ama ay mareen madaxweynayaal kale inaad qudhaadu marto sida Ismaaciil Cumar Geelle oon ogahay inuu Sheekh Maxamed Idriis ku tagay Djibouti muxaadaraad ilaa 10 bari ka socday ama 7 ka socday kuna soo gabagabeeyay kulan uu sheekha la yeeshay madaxweyne Geellena uu runtii u wacay kadibna uu maaragtay tawsiyaad iyo dardaaran uu ka dalbay wixii aragtidiisa ah inuu u dardaarmo isagoo mucazzaz oo mukarram oo sharaf lana oo sida ku soo dira uu kaga soo baxay wadanka Djibouti waxa kale oo ogahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isaguna u yeeray Sheekh Maxamed taqriiban 24 saac gudahoodna 2 jeer uu la fadhiistay taasoo runtii keenaysa ahamiyadda iyo ihtimaamka culimadu ay leeyihiin iyo waxa ay xambaarsan yihiin iyo khibradooda iyo in laga faa'iideysto haddaba madaxweyne Muuse waxaan ka codsanayaa una dardaarmayaa in sheekha la soo celiyo wadankiisii lagu soo celiyo ummadda culimada hadee u duceebaa la oran jiray culimada lagama xanaajiyo oo lama diro
marka in sheekha la soo celiyo dadkiisii lagu soo dhex celiyo la karaameeyo isagoo mucazaz oo musharafa aan aragnay berri isagoo la fadhiya madaxweynaha ee Somaliland Muuse Biixi Cabdina waan ka codsan lahayn insha Allah tacaala culimadu waad ogtihiin oo sidoodaba inayna gobol lahayn iyo wadan gaar ah waxaad ku ogtiin waagii hore xitaa culimadu way iska safri jireen xer bay ahaan jireen magaalay tagi jireen gabadh baa looga guurin jiray xoolaha loo goyn jiray halkaas ku dhali jireen ka awow intaas aragteen sheekh waliba gobolka uu joogo uma dhalanin hadii laga wado meesha ay dadku ka kala yimaadeen laakiin culimadu male meel gaara marka waxaan ka codsan reer Somaliland oo dhan uu ugu horeeyo madaxweynuhu sharafta badan in insha Allah tacaala sheekha si sharaf leh lagu soo celiyo lagana farxiyo insha Allah tacaala wadankiisii waligiiba imaan jiray oo jeclaa qoraalada badan uu ka sameyn jirayna lagu soo celiyo aad baad u mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh